hawsha lagu dardargelinayo dhismaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay hormuudka ka yihiin dhismaha wadooyinka iyo adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha dalka waa heshiis mataaneyn ah oo ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo soo martay dhaawacyo kala duwan welina qaarkood ay kasii muuqanayaan raadadkoodii hadda waxaad moodaa in ay kasoo bogsanayso inkastoo dadaalka Muqdisho lagu dhisayo laguna casriyeynayo uusan ku ekeyn oo kaliya wadooyinka dhismahooda. sidoo kale waxaa jira qorshe ballaaran oo dib lagu casriyeynayo garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo sidoo kale dekedda caalamiga ah ee magaalada tan. dadweynaha Soomaaliyeed ee caasimadda degan waxay isweydiinayaan Muqdisho iyo Istanbul oo Turkiga ah sida lagu gaari karo mataanintooda iyadoo taasi ay jirto haddana waxaa jira dad kale oo iyana qaba ama ay ka muuqato rajadaasi in la gaari karo qaybo badan oo magaalada Muqdisho ah wadooyinkeeda iyo meelaha mataaninta hormuudka ka ah oo aan booqasho ku tagay ayaan kula kulmay sawirro kala duwan kuwa ayaa waxay qaarkood muujinayeen rajada dib u dhisidda Muqdisho iyo sidoo kale la wadaagidda mataaninta magaalada Muqdisho ay la wadaagayso magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. meelaha aan tagay waxaa ka mid ahaa wadooyinka dhismahooda uu socdo ee hadda laamiga la saarayo oo ay ka shaqeynayaan shirkadaha dhismaha wadanka Turkiga. wadadan laamiga ah waxay ka mid tahay wadooyinka dawladda Turkiga ay dhismaha ka bilaabeen sida daawadayaal. sidoo kale wadadan waxay ka mid tahay ama ay tahay wadooyinka ka soo baxa isgoyska korontada ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir. sidoo kale wadooyinkani waxay ka mid yihiin wadooyinka dawladda Turkiga ay doonayaan gaar ahaan dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga in ay ku mataaneeyaan magaalooyinka Muqdisho iyo Turkiga oo hadda mataaninteeda ay ka bilaabatay dardargelinteeda ama dib u dhiskeeda magaalada Muqdisho qaybo badan oo ka mid ah. sidoo kale waxaa jira qaybo kale oo wadooyinka magaalada ku yaala oo iyana burbur lixaad leh oo ka muuqda hasaatee la doonayo in wadooyinka soo socda ay gaaraan iyadoo laamiga qaybta la dhisayo ay si caadi ah u isticmaalayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan haddana weli waxaa ka barbar socda dhismaha wadada laamiga labaad. intii ay socotay booqashada mataaninta Muqdisho iyo Istanbul ayaan la kulmay dad kala duwan oo iiga sheekeeyay aragtidooda arintan dib u dhiska ku aadan iyaga oo sidoo kale ka waramaya sida ay ku haboon tahay hawshani waa ayna soo dhaweeyeen dib u dhiska laamiyada magaalada caasimadda ee Muqdisho. wada fiican waaye waxaan markii hore ay sheegaynay waxaan ku qabi jirnay dhibaato fara badan baabuurtu 24 saac markaan socono way halaabi jirtay inkastoo jug dhowrayaasha iyo waxyaabo badan ka bedeli jirnay. wadadan markaan marayno waxaan dareemay raaxo sababtoo ah gaarigu inuu sheegaynay dhiiri oo maraya ayaan sheeg markii hore moodi jirnay laakiin hadda wax oo sheeg dhibayo kama dareemayno marka aad u soo dhaweeyna qolooyinkan nagu saaciday inay wadooyinka noo sameeyaan si macnaha baabuurteen tahay u laad waxaad arkaysaa baabuur oo markii dekedaan ka soo qaadno adiga hal sano ka bacdi waxaan arkaynaa gaarigeyna oo finish noqday marka waxaan dareensanahay hadii wadooyinka saan ka wada dhigo in gaarigeyna xataa 10 sano gaari karo marka hadii sheegaynay aad u soo dhaweeyna nimanka wadooyinka saan u sameeyay wax walba lagu dadaalo meesha doonta ayad oo kaysan kartaa Istanbul iyo Washington iyo New York iyo meesha doonta kaysan kartaa wax walba lagu dadaalo rajadu way dhowdahay sideedaba annaga sidana Soomaali hadaan baadi ayaa naga lunta baadina ma hayna laakiin raadkeeda ayaan helnaa baadina naga lunta waxay dawlad dhan naga jirta ma garin laakiin hadda raadkeeda ayaan helnaa raadkii markii lagu dhiirado lagu degdego oo la isku taxallujiyo wal helaya baadi marka raadkii ilaaliso tira meesha marhalka neefka halka ku dhaqaal halkaas meel hab loo gaar marka daba taagantood helaysa laakiin dawladda ma hayna raadkeen hayna raadkii aan ku dadaalna qabanno. mar kale ayaan weydiiyay qofkan oo aan adeegsan magaciisa sida mustaqbalka lagu gaari karo mataaninta Muqdisho iyo Istanbul waxa uu hadalkiisa intaasi raacinaya marka uu su'aashaasi iga jawaabay in Soomaalida ay qaybtooda ka qaataan dib u dhiska dalkooda. mustaqbalka la gaari kara aad iyo aad loo gaari kara dadka Soomaaliyeed waxa waaye waxa u dana nabada u dana mid aragto wadooyinkan waxay ka mid tahay nabaday ka mid tahay sababtoo laamiga sanad loo dhiso meelaha qaarkood xataa in wax la geliyo iyo in waxa waaye sheegada amaan darro ay ka timaado xataa waa sheeg waa aad loo xakameeyo nimanka booliisku waa ku dhibaatoodeen wadooyinka duduleela
waxaa la geli karaa soo cawada meesha wax la geliso laakiin haddii si fiican loo dhiso waa la dareemayaa wadooda inay nadiif tahay meeshii oo markaas cilad ka timaado amba helaysan amba dhibaato u geysan waa la dareemi karaa in wax ku jira amba wax laga dareemi karo amaan darri awgeed laakiin haddii wadadu toos wada jaban tahay ammaankooda lama sugi karo marka wadda la dhiso xataa waxay ka mid tahay ammaanka magaalada wax loo qabtay ka mid tahay marka aadan usoo dhaweeynaa waana mantaano waa noqonayaa insha Allah haddii la yidhaaho waxaan ka rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed iyagana inay xawaay ku dhiirigeliyaan dadka wadooyinka dhisaya waxaad arkaysaa marka qaarkood wadooyinka markaa maro dadka wadooyinka dhisaya dhibaato badan xataa ku qabaan iyo laftooda waan aragnay anaguna waxa waaye ii sheegaynay inaan ku saacidno baawrida haddaan nahay say macnaha ay wadooyinka noogu dhisaan anagana baawrteena tayo u lahaato saas ayaan u soo dhaweynayaa garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waxa uu qayb ka yahay heshiiska mataanaynta ee muqdisho iyo Istanbul 15kii bishan waxaa maamulka garoonka la wareegtay shirkadda Fifori ee wadanka Turkiga waxayna soo bandhigtay shirkadaasi naqshada ay ku doonayso in ay ku dhisto guud ahaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho muddo aan sida u badnayn kadib sidoo kale dekada caalamiga ah ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah mataanaynta magaalooyinka Istanbul iyo muqdisho ee mustaqbalka dhow iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi oo hogaaminayo oo tagay Turkiga madaxda dalkaasi ay sidoo kale la gaareen heshiis gobolada Soomaaliya oo dhan dawladda Turkiga ay ugu bilaabayso mashaariic dib u dhis ah dhanka kale haddii aan intaa uga gudubno dhismaha bilowga ee wadooyinka laamiga ee muqdisho waxaa iyana jira wadooyin badan oo uu wali burbur lixaad leh ka muuqdo inkastoo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood ay sameeyeen dadaal wadooyinka burburkooda xal loogu helayo ilaa dhowr isgoos oo ay ka mid yihiin wadada labaad ee Bakaaraha oo burbur lixaad leh uu ka muuqdo iyo sidoo kale isgooska Tarboonka ee magaalada Muqdisho oo isaguna ahaa sida tan halkan waa wadada ama isgooska Tarboonka ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay isgoosida magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ugu caansan ama ugu shaqada badan haddana waxaad arkaysaa sawirka ka muuqanaya burbur lixaad leh iyadoo aysan jirin tan iyo markii dib ay dadku ugu soo laabteen wadooyinkan kadibna ay ka bilaabeen shaqooyinkii gaar ahaan isticmaalka gaadiidka dadweynaha kuwa gaarka loo leeyahay ma jirin cid si gaar ah dayactir ugu sameysay inkastoo maamulada qaar ama kuwa degmooyinka ay isku day la xiriira in wadooyinka ay wax ka qabtaan ay isku dayeen waxaana isgooskan Tarboonka oo ah mid caan isla markaana ballaaran isla markaana dhaca qaybta qorox u dhac ee magaalada Muqdisho uu mataan leeyahay isgoyska ama wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho waxaa la oran karaa waxaa soo muuqanaysa rajada higsiga Soomaaliya ee dib loogu dhisayo dad kala duwan ayaana aragti mustaqbal leh ka qaba arintani 12kii bishan ayaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa uu Muqdisho ku soo bandhigay higsiga Soomaaliya ee 2035 oo uu la jeeday sida dalkeena uu noqon karo waqtigaasi marka la gaaro waa 22 sano kadib waa xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow mataanaynta magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbul oo caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale caasimadda labaad ee wadanka Turkiga waa heshiis ay wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Turkiga kaas oo mustaqbalka lagu doonayo in magaalada tan ee Muqdisho lagu gaarsiiyo in ay u ekaato ama dhismaha caasimadda labaad ee wadanka Turkiga ee Istanbul waxaana muuqata rajada la xiriirta in la gaarsiiyo magaalada Muqdisho mustaqbalka higsigaasi Faisal Muuse Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliya Muqdisho